الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. عباد الله، حديثنا اليوم عن ذنب عظيم وجرم خطير. حديثنا عن خلق سيء يحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء وكدر وبلاء. إنه الظلم يا عباد الله. تعلمون ما يقع في مدينتنا لاسعانوت من قتل للأبرياء وتنكيل للشعب العزل. لك الله يا لاسعانوت الجريحة، كم في أثوابك الدامية من أحزان وآلام وأوجاع، ما تأتي مصيبة إلا ويخلفها ملمات ونوائب. مناظر الدم والحزن وصرخات الوجع والألم أصبحت روحا ساكنة في جسد كل شخص من سكان لاسعانوت. فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. فإن مع العسر يسرا. ونعلم علم يقين بأن الضيق له نهاية وسيأتي بعده فرج، ومتفائلون بأن القادم من حياتنا أفضل إن شاء الله. لا يظنن أحد أن ظلمه للعباد سيضيع ويذهب دون حساب ولا عقاب، فالمولى توعده بعذاب أليم. فالظالم في دنياه لا يهنأ بحياة، فهو دائم الشعور بالخوف والقلق، والخوف من انتقام المظلومين مع ما يصيبه من بلايا ومصائب بسبب دعاء المظلومين عليه. أما في الآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كيف يكون حالك يا ظالم حين قرع سمعك نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. عند ذلك يتيقن الظالم قوله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وبعد الحساب سيمكث الظلمة في نار جهنم، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. walaalayyaal, xadiid nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh uu ka warinayo rabbigii, xadiidka ku sugan fii saxiixi muslim, wuxuu leeyahay nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh: rabbi jala jalaaluhu wuxuu yidhi, innii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. waxaan ka xarimay naftayda dulmiga, dhexdiinnana dulmigii waxaan ka dhigay mid xaaraan ah, ha isdulmiyana buu leeyahay rabbi jala jalaaluhu. dulmigii laga digay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka digay aadanuhu inay dhexdooda isdulmiyaan, dulmigaasaa laascaanood ka socdaa. dhibka laascaanood ka jira reer laascaanood way og yihiinoo uga warrami maayo.
waxaan rabaa dadka aan ogeyn inaan wax yar uga bidhaamiyo oo uga iftiimiyo dhibka laascaanood ka jira. laascaanood waxaa ka socda muddo 13 sannadood ah dilal gaadma ah oo qorshaysan. dilalka waxaa lagu beegsanayaa dadka ummadda indhaha u ah. waxaa lagu iba furay dilalka allaha u naxariistay cismaan macallin faarax oo ku magac dheeraa suxufi. waxaa bila kadib la xejiyey salebaan jaamac hayaan, salebaan dheere allaha u naxariistee. wixii intaa ka dambeeyey dilalku waxay noqdeen tusbax go'ay. dadka la beegsanayo inta badan waxaa lagu dilaa meel aan ka fogeyn halka ciidanka Somaliland uu joogo. qofkii la dilay cidna looma soo qabto, cidna looma maxkamadeeyo. warkana waxaa lagu afmeeraa madax duub ayaa dilay. mararka qaar waxaa dhacda oo laascaanood gudaheeda ka dhacda inta qof la dilo beel kale in loo xidhxidho, beeshii la xidhxidhayna muddo kadib in qof laga dilo si labadaa beelood isugu dhacaan. in badan in beeluhu isku dhacaan waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku badbaadiyey oo dhiigooda ku kala hagoogtay culimadii iyo odayaasha. maxkamad shareeca markii loo qaaday kuwo badan waxaa soo baxday inaan iyagu isdilin, cid kale inay dishay oo isku diraysa. qofkii ka dhiidhiya dilka ka dhacaya laascaanood ee hadla waxa uu noqdaa mid dilku xukuman. intii hadashay badankoodii waa la dilay. waxaa u dambeeyey cabdifataax cabdilaahi cabdi hadraawi sangu ku magac dheeraa. iyadoo aanu aaminsannahay sheekh cabdinaasir xaaji axmed sheekhulbeledkii dadka deegaamadan inuu sababsaday hadalkii uu ka hadlay si qoto dheerna uga hadlay dilalka magaalada laascaanood ka socda. hadalka annagu aanu ka hadlaynana ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisaanu rabnaa inaanu cudurdaar dhiganno. waxaanu ku xukumanahay dil, laakiin naftu xilli bay leedahay. wallahi baanaan xilliga iyaga dhaafayn. likulli ajalin kitaab, ajal weliba waxay leedahay qoraal, wakhti bay leedahay. walan yu'akhira allahu nafsan ida jaa ajaluha. ilaahay tabaaraka wa tacaala dib u dhigi maayo nafna marka wakhtigeedu yimaado. wakhtiga iyagaanu ku dhimanaynaa. wakhtiga iyagu markuu noo yimaadana raalli baanu ku nahay qadarka rabbi jalla jalaaluhu. gor aanu dhimannana waa dhimanaynaa. sababta aanu u dhimanaynana rabbi jalla jalaaluhu baa ogsoon. hadalkaanu leenahay cidna uga biqi mayno. waanu ognahay inaanu dilku xukumannahay. haddiiba ay dhacdo in cid dhagar qabta si uun loo qabto waa la qaadaayo hargeysa la geeyaa. wax damboo hadal haya lama maqlo, maxkamad la saarayna lama maqlo. qaarkood jeelasha gudahooda ayay ka qirteen dilka ay geysteen. markii xal la waayena waxay noqotay ciddii uu ka dhashay inta la aado in magta laga qaato. dilkani wuxuu gaar ku yahay magaalada laascaanood. deegaamada hareeraha ka jira lama qabaan. burca lama qabto, hargeysiya berbere iyo bowrame lama qabaan. tanuu gaar ku yahay. xaggan kale lama qabto, garowe lama qabto. ay waa dil laascaanood ku xukuman tahay. intaasoo dhibaato ah oo alla weyne ka warqabo bulshadu marka ay ka dareen celiyaan waxaa la waraabiyaa dhamac rasaaseed oo aan loo kala aaba yeelin. tirada mudaharaadka ku dhimatay intii dhibkani socday kama yara tirada habeen madow la qashay haddii aanay ka badnayn. inta ku dhaawacantayna warkooda badaa. laascaanood dadka la dilayo aana qabiil looma dilo. horay aana qabiil laascaanood dadka waa loogu dili jiray, waana la ogaan jiray cidda disha. ka shaydaanku yidhaahdo aana qabiil waxu dil ma qariya wuu ku faanaa. kuwa dhowaanahan dhacay baynu garanaynaa oo aan qarsoomina caddaaday ayaynu garanaynaa. dadka deegaankani waxay u qaybsan yihiin ama reer laascaanood mid la dilay, mid hadlay oo dil suga ah, mid ka dhiidhiyey dhibka oo jeel ku mutay, mid ka haajiray, mid
baqdin iyo cabsi joogta ah ku jooga laascaanood iyo kii isagu u soo socday oo aan imaan waxaad moodaa in arrimahan oo dhami ay qorshe ku socdaan dadka deegaanka waxaan leeyahay war markaad iskhilaafteen war markaad isnacdeen ee la iskii nacsiiyey markii aad yeelateen ciidan beeleedyo reer walba u gaara oo horumar iyo amni aan ka shaqayne maalinba laba yaga ka mida la isku dhufto ayaa xaalkiinu sidan noqday markaasaa haadkiiyo hanraawuhu idinka dhergay sidanna alla idinka bedeli maayo ilaa idinku nafihiinna aa beddeshaan ilaa aad idinku midowdaan oo idinku isjeclaataan khilaafka dhexdiinna jira aad saartaan danta gaarka aad ka tagtaan oo mid guud aadaan diintiinna dadkiinna dalkiinna duunyadiinna dantiinna aad u soo jeesataan wallahi baan dhibaatadani aanay laydinka dulqaadayn bayaan meel laga soo saaro iyo warmurtiyeed iyo baaq meel laga soo saaraa dadka deegaanada waxba u qaban maayo kuwa ka maqan ee meelaha baaqyada ka soo diraya deegaankan dhiqi mayso nabad iyo xasiloonina ku heli maayo ilaa dadkiisu isu yimaadaan oo midoobaan oo tala midaysan ay yeeshaan waxaan leeyahay ka aan shaqo aan jirin haya iyo xil aan jirin war xilka aan dadkaaga lagu xeerinayn xilka amarkaaga amar ka sarreeyo muxuu kuu tarayaa dadkaagiiba dhammaanyayaad xil u sheegan baan leenahay waxaa jirta qolo Hargeysa ka hadashay oo yidhi waxaanu nahay hay-adda ama guddiga wanaag farista iyo xumaan reebistaanu nahay bay yidhahdeen waxaan leenahay halkii cir laga filayey ceryaama ka timi hadalkiinu ummaddan wax ma tarin ee waxbuu yeelay waxyeelu u geystay halka aanu ka eegaynay dulmigan inaad ka hadashaan dulmigan inaad ka dhiidhidaan ayaad hadalla deelqaaf ah oo aan ummaddan qaban baad ku hadasheen adiga hadday isugu kaa qoofalan yihiin nabadgelyo hadday isugu kaa qoofalan yihiin haldoorkaagoo kuu dhaqan hadday isugu kaa dhaqan yihiin nicmooyinkaoo isugu kaa qoofalan yihiin annaga isuguma kaayo qoofallah annagu tacsi iyo dilu joog baanu nahay tacsi iyo dil baanu u joognaa abwaankii waa tii uu yidhi habartii docdeedii dagalkay ku noolayd daruuruhu ku hooreen dadka wada helmoodoodaad wararac bay tidhi misna talada kuma darin inuu duud abaariyo degel lagu haraadiyo gobol lagu darleefiyo darxumooyin muuqdaan war nooma haysaan ha noo celinina hadalkaa waa gartiin inaad ka hadashaan food iyo codayn waa gartiin annaga nooma taallo dhiiggayagiibaa hadhiya habeen qulqulaya boqolaal baa nalaga dilay wax lagu dilayna aanaan aqoon meel aanu u raacna aanaan aqoon dadka waxaan leenahay ka xishooda hadalkiinu dhibkana haysta yaanu dhib noogu darin waxaa jira kuwo kale oo iyaguna baraha bulshada ilaa xalay soo gelinayay culimada reer laascaanood lacag baa loo soo diray oo masaajidda ka hadlaa la yidhi kuwaa waxaan leeyahay qudhiina idin fahanay waxaad rabtaan bulshada iyadii inaad sii kala qoqobtaan waxaad rabtaan culimadii iyo bulshadii inaad khilaaf dhex dhigtaan waa ujeeddo kaloo aad leedihiin waa idinku fahanay cidda keliya bulshadan u soo hadhay ee hadlaysay ee u dhimanaysay ee dilka ugu xukunayd war maa waanay culimada ahaynii jawaaba idinkaa idin weydiiya yaa idiin hadhay oo hadla jawaaba intiina masaajidka fadhida cidda hadashaa waayo war ma waanay culimada ahayn culimada hadasho cid kaleba ma hadasho waxaanu aaminsannahay sidaan horay usoo tilmaamay sheekh cabdinaasir hadalku idiin hadlayay inuu u dhintay baanu aaminsannahay oo u shahiiday waxaan leenahay shacabka burco iyo hargeysa iyo deegaamada nabadda ah ku nool waxaan leeyahay dulmi baanu annagu qabnaa nabadgelyo xumaanu qabnaa shalay baad ka cabateen dulmi
oo aad tidhaahdeen waanu ka dagaalannay war hadda dadkani yeeli maayaan dulmi awoowayaashoodba aanay yeelin oo diideen wallahi baanaan yeeli maayaan dadkani dulmiga idinku aad diideen wallahi baanaan idinkana idinka yeelayn oo mid tala xun oo idinka xaggiinna ka yimi wallahi baanaan ka yeelayn inuu maatadayada iyo carruuraha iyaga laascaanood gudaheeda ku laayo reer laascaanood waxaan leeyahay ha xadgudbina sharciga wax xadgudub ku aha samaynina dhaqanka sharciga aan khilaafsanayn wax xadgudub ku aha samaynina hantidiinna guud iyo hantidiinna gaarka aba ilaashada idinkaa leh dhiigbaxa hanti burbur ha inoogu darina hantida inagaa leh iyagana taasaan leeyahay guud ahaanna waxaan leeyahay war sidan si dhaanta dadka gobolladan u dhashay iyo deegaamadani sidan si dhaanta ha la yimaadiin dhibkan waa laga baxaya in sha allahu tacaala nin dhibka la dhashayna ma jiro watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaan leenahay maamulka somalilan culimo ganacsato waxgarad in badan ayaa laydinkala hadlay dhibka dadkan haysta waadna ku fashilanteen wax ka qabadkiisi xalkiinnii waxaad ka dhigteen dadkii aagga ciidankiinnu uu joogo habeenkii lagu mirayey ee lagu dilayey inaad idinkuna dharaartii markay ka dhiidhiyaan aada laysaan oo hubka noocyadiisa kala duwan aada u adeegsataan waxaan leenahay idinkoo xeerinaya islaamnimada dadka deriska aynu nahay idinkoo xeerinaya dadkan deegaanadooda uga tago uga baxa mar haddaydin nabadgeliyo aydan u keeni karayn deegaankooda uga taga shalayba yaga amnigooda ka shaqaynayey maantana in sha allahu tacaala amnigooda iyagu ku filan ilaahayow ma gaadhsiiyey ilaahayow markhaati ka ahow ma gaadhsiiyey ilaahayow ma gaadhsiiyey ilaahayow ma gaadhsiiyey alaa saluu wasallimuu cala albashiiri الnadiir kama amarakum allahu tacaala fi kitaabihi alcaziiz in allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala الnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli cala muxamadi wcala ali muxamed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد بالمسلمين كيدا فاعد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا قهار اللهم من أرادنا وأراد بأهلنا سوءا فاجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا قهار يا قوي يا قهار يا عزيز يا جبار اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.